Okay, asalaamu calaykum akhyaarta. Horta midda koowaad yaa dad badan ayaa ku wareeray tababarka Somali Business Academy, meeshii aadi lahaayeen, meeshii isku qori lahaayeen, waxay qabi lahaayeen, waxay sameyn lahaayeen. Dad badanaa ku wareeray. Midda labaad, alxamdulilah, halahaasoo qofood ayaa isku qoray academiga yaa Somali Business Academy. Dad badan ayaa isku qoreen, marka alxamdulilah, marka waa mahadsantihiin dadka isku qoray oo isdiiwaan geliyey. Tababarkii way bilaabeen. Dad badan ayaa ku wareereen, way fahmi lahaayeen meeshii aadi lahaayeen, sida loo galo iyo waxay qabi lahaayeen, meeshii ku dhufi lahaayeen, waxaasay ku wareereen. marka haddaa mobilka ka isticmaalaysid, mobilka haddaa ka isticmaalaysid, waxaad aadaysaa Google Chrome. Google Chrome ayaa aadaysaa, ama Safari haddaa Apple isticmaalaysid. haddaa computerka ka isticmaalaysid, computerka haddaa ka isticmaalaysid, waxaad aadaysaa Google Chrome ama Internet Explorer ama Safari ama Firefox ayaa aadaysaa. Okay, kadib marka waxaa aadaysaa website-kana aadaysaa. Website-keeni ayaa aadaysaa somalibusiness.info/ASI. Okay, website-kana aadaya. Okay, website-ka markaa aadid uu ku keenaya, kana arkaysaa. Page-kan ayaa arkaysaa, soo ma jeedid. halahana waa information ku qoran, macluumaad badan ayaa ku qoran. Kan waa macalinkaaga, waa aniga macalinkiina duruustan iyo casharadan aniga dhigo. marka waxaana waa information, waa macluumaada ku qoran, waxaana dhan u jeedid. macnaha wuxuu ka hadlayaa tababarka muxuu yahay, faa'iidadu leeyahay, waxaad ka baranaysid, xirfada ka baranaysid, iyo marka oo dhammaysid kadib saa u shaqaysan lahayd internetka iyo macnaha iyo waxaas dhan. page-kan kulli iska akhriya. bogan u jeedin, soo ma jeedin, kan kulli iska akhriya. muuqaala ku jiro, inta video ayaa ku jiro, korkan internet video kale ayaa ku jiro, soo ma jeedin. kan video ku jiro. marka video iska daawada haddaa rabtiin, waxaan iska akhriya. hoos haddaa u degataan, hoos u degta. kan waa qarashka la joogo waaye. macnaha waxaa dhahnay soona lagu jiraa. qarashka koowaad wuxuu ahaa $199. marka waxaa isdhahnay soona lagu jiraa, marka dadka u tartiibi in yara ka faa'iidaystaan. lacagta naga dhibnay, kadib waxaa ka dhignay $79 ka dhignay. marka dadka way cawaadeen, lacag ma hayno, tababarka u baahanahay, shiidaanahay, lacag la-aanaanahay, marka naga caawi camal ay dhaheen. marka waxaan go-aaminay in aan ka dhigno $25. hadda marka qiimihiisa, tababarka qiimihiisa waa $25. okay, marka hoos haddaa u degatid, meelahan waa ku dhufi kartaa. horta soo ma jeedid, intaa ku dhufi kartaa, intaa ku dhufi kartaa, intaa ku dhufi kartaa, intaa ku dhufi kartaa. meel kasta ku dhufi karta, ku dhufo, wuxuu ku geenayaa boga kale, page-ka kale ayuu ku geenayaa. marka haddaa hoos u dhacdid, kan wuxuu ku tusaya cashirada oo tababarka dhan. waa kana intaa ka arkaysaa, soo ma jeedid. waa kana intay ku jiraan cashirada. hadda inta ku dhufatid, hoos cashirada badan kulli waxay dheeraad ayaa furmaayo. marka cashirada oo dhan waa kana intay ku jiraan. waxaad ka bari lahayd, waxaad u faa'iidi lahayd, say wax u qabi lahayd, kulli intay ku jiraan, soo ma jeedid. marka kan waa internetka. cashirkan Somali Business Academy waa internetka ayuu ku jiraa. meesha ayuu fadhiyaa cawo iyo maalin. waqtigaa rabtid ayaa geli kartaa. waqtigaa rabtid, haddaa telefoonka galaysid ka gal. laakiin waxaa fiican inaad gagashid laptopka ama computerka ugu fiican. laakiin haween iyo maalin wuu furan yahay, waad geli kartaa. haween iyo maalin waad geli kartaa. marka waxaa ku qiyaasanay macnaha tababarka wuxuu qofku ku dhameynayaa 1 isbuuc. laakiin haddaa rabtid 1 isbuuc ka hor waa ku dhamey kartaa. haddaa macnaha kulli muuqaalkii kulli daawatay oo imtixaana ku jiro, imtixaan gaagaaban oo quiz ah,
su-aale waxaasaa ku jiraan kulli haddaa ka jawaabtid oo muuqaalkii tababarkii kulli wax kastoo dhamaystirtid yani way inta iskaga jiraan internetka waayaan marka kulli yaa waxaa la yaabaa 3 maalmood 4 maalmood ilaa ku dhamaysid waa laga yaabaa marka dadaalka iyo aqoonsiga dadaalka iyo saa wax u fahamtid ayuu ku xiran yahay okay marka kana waa information kuwaan soo majeedid casharada weeyaan marka kuwaan waxa baa dadka ka khalan jibiyay yaa 3 qofood gabartan iyo 2 wiilal tababarka ay qaateen way ka khalan jibiyeen markii dhameeyeen marka waxaan dhahay ihsaan ii sameeyaa dhahay waxa ii soo qortaa macnaa in yar adi jumlad oo kale ii soo qor waxa ka hadashaa imtixaanka soo waxa ka hadashaa jumlad ii soo qoraa dhahay waxa ka hadashaa tababarka soo ahaa iyo haduu ku anfacma in kale ama iyo maxaa qabataa hada marka waa kana ii soo qoreen soo mujeedid gabartan af Soomaaliya ku qortay yarkan af Ingiriis ayuu ku qoray iyo kan wuxuu ku qoray af Soomaali ayuu ku qoray marka 3 qofood oo ujeedin way ka khalan jibiyeen way dhameeyeen tababarka marka waa kaasa hadda marka meel ku dhufanayna meel kasta ku dhufi kartaa soo mujeedid inta ku dhufi kartaa meel kasta da ku dhufatid wuxuu ku keenayaa bog kale ayuu ku keenayaa okay inta ku keenaya marka qarashka waa $25 soo mujeedid yaa $25 ayaa ka dhignay wuxuu ahaa qarashkii koowaad wuxuu ahaa $199 ayuu ahaa kadib waa dhinay waxa ka dhignay 79 ayaa ka dhignay marka soonsona lagu jiraa waxa rabnaa dadka la ka faa'iideystaan ilaahay dartiis ya liwajhi illah ilaahay dartiis ayaa lacagta u dhibnay waxaan ka dhignay 25 saa ugu faa'iideysatid wili dadka qaarkood waxay taagan yihiin free click bilaash ka dhig ay taagan yihiin marka bilaash macquul ma ahan inaan ka dhigno yaa lacagta macnaa sicirka waani dhibnay aad aan dhibnay macnaa macluumaadka inta ku jira tababarka macluumaadka ku jiro iyo waxa ka faa'iideysanaysid ya dadka qaarkood waxay ku gadaan $1,000 $2,000 ay dadka ka bixiyaan ya maxaa la dhahaa duruustan iyo cashiradan iyo tababarka marka aniga qaadanayay waxaan ka bixiyay yaa halaasoo $100 ayaan ka bixiyay marka halaasoo $100 ayaan ka bixiyay marka aniga isku faa'iideynayay yaa sanooyin ka hor marka hadda $25 hadii loo fiiriyo $100 iyo $1,000 wax ma ahan waa ever waa zero waa free marka dadka dhahayaan free ka dhig yaa waxa waaye bakhilnimada iska daaya lacagta iska bixiya marka inta imaanaysa hadda leedahay kaarka Visa card iyo Mastercard hadda leedahay yaa waa gelinaysa halkaan gelinaysa kaarka numberkiis taariikhu dhacayo iyo CVC waxa la dhahaa kaarka markaa gedisid gadaashiis number ku qoran numberkaas la dhahaa iyo waxaad dooranaysaa wadanka joogtid inta la baxaysa wadanka joogtid ya dadka Soomaalida qaarkood dunia meel kasta ka joogan hadda Yurubta way joogan Africa way joogan Shiina way joogan Australia Mareykanka marka Soomaaliya da joogtid ama meelahaas wadanka ay kala baxayaan marka Soomaaliya da joogtid Soomaaliya ku dhufanaysaa kadib waxa gelinaysaa emailka gelinaysaa iyo magaca gelinay okay midda kale dadka qaarkood waxa lagu dhahay macna Soomaaliya adig kaarka Visa iyo Mastercard ma laga isticmaalaa lagu dhahay marka hadda haysanin ya kaarka Visa card ama Mastercard hadda haysanin inta ma ka bixi kartid soo mujeedid ma ka bixi kartid marka waxaad sameynaysaa anaka la soo xariir marka waxa fiirinaynaa hab kale si lacagta noo soo diri lahayd ayaa fiirinaynaa lacagta marka noo soo dirtid kadib macna accountiga waa ku fureynaa waad galaysaa ya macna duruustii casharadii iyo tababarkii sidaas u qaadanaysaa marka emailka gelisid magaca marka gelisid inta ku dhufanay agree leedahay Visa card ama Mastercard kaarka bangiga gelinaysaa inta waa buuxinay ya kadib inta ku dhufanaysaa soo mujeedid iyo halkaan ku dhufanay marka informationka macluumaadka dhan oo buuxisid hoosana ku dhufanay enroll in course macna fasalka isdiiwaan geli saasa loola jeedaa enroll in course macna fasalka isdiiwaan geli halkaan ku dhufanaysaa wuu galayaa akaasa marka fasalka waa ku jirtaa academy waa ku jirtaa Somali Business Academy
ya marka waxaad bilaabi kartaa tababarka ayaa bilaabi kartaa. marka si aan sheegnay tababarkan waxaa internetka haween iyo maalin ayuu furan yahay, haween iyo maalin ayuu furan yahay. waqtigaa rabtaa geli kartaa, subaxii, galabtii, habeenkii, maqribkii, waqtigaa rabtaa geli kartaa tababarka. waqtigaa rabtaa macnaa aad daawi kartaa, aad ka bari kartaa. marka waa kaasaa wax su-aal haddaa leedihiin facebook gal ama facebook groupkeena nagu soo bir, iyo ama Instagram waa ku jirnaa, Facebook waa ku jirnaa, ama muuqaalkan videoan hoostiisa commentiga hoostiisa ku qora waxay su-aalo aad qabtiin. marka waa kaas hadda Soomaali joogtid ama haddaa joogtid wadan laga isticmaalin kaarka bangiga, anaka loola soo xiriir. marka waxaa fiirineynaa dariiqad kale, yaa hab kale si lacagta noo soo diri lahayd ayaa fiirineynaa kadib oo micnaha tababarka bilaabi lahayd. marka dadka dhahay tababarka bilaash ka dhigayo, free ka dhigayo, waxaan yaa iska daaya. yaa waxa waaye 25 wax maahan. dadka qaarkood yaa 300, 400, 500, $600 tababar noocan ka bixiyaan, iyo ama $10,000 ka bixiyaan. waxay informationka inta ku jira waxaa ka faa'iideysanaysaa ka badan. yaa waxaad ka faa'iideysanaysid, aqoonta yeeshanaysid ayaa ka badan. lacagta 25 ha fiirinin. yaa ka waran 25 haddaa maanta bixisid oo aqoon yeelatid, aqoon fiican, yaa knowledge, education fiican inta ka baratid oo kadib ka shaqaysatid oo ka heshid ka waran $100 ama $10,000 haddaa kusoo galaan. maxaa dhibaya 25 bixisay, aqoonsi ay yeeshatay, $10,000 iyo $100 aa heshay. yaa khasaaro ma waa faa'iido, waa faa'iido soo ma ahan. marka waa kaasaa isdiiwaangeliya. khayr badan ayaan rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.